jabra wada aamus sida ugu jeestay nafsiga uu ka galay wax wada qaadan karayo wax laga aamusi karayo wax la fiirsan karayo midna ma aha iga foge nafsiga noocaas we don't need no fuust ilma dambe anaga jeexjeexina kaarkasna ka jeexjeexinayna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي ملك استاذوك جوكتا وصاحب كين سيكي أكا أدحايو مايا ديديو دروغبا أفتر شالي قرونك وحان كسمي دروغبا سيكي ما وإذن سلامي يا صاحبي يال رياكشن أيان ربا إنان كجارسي سايدين شاقي وإنتا هوليهي وطو البروغرام هذا هل كانوا إمد رياكشن كانوا واكسو احتوريا لما إلوبان وايكاس وحان ربا إنان هل إلا بكره أرين هدى أمون قصية run ahaantii arrinkaas oo hadda social media ka karkarsan maadaama anigu qurbaha aan ka imid aan aqaano waxyaabaha ku halbaala carruurta la iska qaato iyo wadamada ku adag iyo waxaan rabaa hal iyo labo in aan maaragtay waxaan ka dhigi karo ciwaankan wax ku saabsan aan ka dhaho bal inoo bilaabo horta muuqaalada aan daawano bilaa jabro baa ku dhahay maanta baa anu qofku yahay ogaada jabro inuu dhiig daarood xataa ku jiro iska dhig ma jirteenime wariyaa isheeg maxay ahayto sameexa khaliil oo gabar weeyaa oo sidii loo kayta ay hudda u caysay oo waliba ayadoo ka aamusnayd ku iscaayaysiina ka aamusnayd hal maalin aan hadlaynin ya maanta beejkeeda soo dhigaysaa maanta hudda kada u ooynaysaa ay gobonnimada lagu sheegay waa intaas oo la isdheeriyaa oo dadku ay isdheerihiin inuu gubiyad waayahay saaxiibayaal saad ogtihiinba xilligan hadda la taagan yahay 24 saac u dambeeyay walaashii hudda amun ay arrinkeeda la wadaa iyo exkeeda sharmaake oo la leeyahay waa uu dacweeyay carruurtii ay isu dhaleen arrin ku saabsan iyo ayada oo la leeyahay carruurtii baa laga qaadanayaa war niman yahow qurbaha waxaa ka jiro dadkeenan Afrika jooga iyo Soomaaliya qurbaha waxaa ka jiro in ubadka la iska qaato wadamadu way kala yihiin wadamo waxaa jiro haddii mar ubadka laga qaato ay adag tahay maxkamad kasta kor lacag kasta ku bixi ay adag tahay si lagugu soo celiyo haddii ay dhacdo xitaa hadhow in lagu soo celiyo ilmahaagiyo dhaqan bedelmay ilmahaagiyo doorsoomay ilmahaagiyo diin iyo dhaqan iyo Soomaalinimo iyo waxaaba aan shaqo ku lahayn oo weynaada arkaysaa oo adigiiba aan ku baahneen waa haddii la soo celinayo wadamada aadka u meelka adag waxay kala yihiin Germany Norway iyo Sweden marka hudda amuun horta ilaahay maaragtay ha u dhib yareeyo arrinkeeda hadda heesto waxaan ugu duceynaynaa in ilmaha aan laga qaadan hadda wararka u dambeeyay hadda maqlaaya waxay tahay dalka Germany in ilmihiiba kala baxsatay ay Talyaaniga meelaha ula carartay ayaan arkayay baa idin sheegaya huddo gabar Soomaaliyeed oo walaasheena ahayd social mediaas wax karkarin jirtay waa la isjaalan gareeya aniga xitaa hadda ka hor hudda amuun mar baan reaction ka bixiyay ka carootay ay ikarbaashi jirtay maanta oo kale markay mareysana garab istaagay mudan tahay ma mudna maanta oo kale isfooto meesha ilmaha la qaadanaya qofka si kastoo wax kala dhaxeeyay xarash kastoo la isku haayay markay marayso in carruurtii la qaato ay gaala qaadato xaasha lilaahi isfooto meesha ma gasho carruur waaye ilmo waaye xisaabta ku darsada gabadhaas waa ogahay inay challenge ku jirtay qabiile inay challenge kula jirtay social media in ay wax karkarin jirtay ha iloobina yeesan xamaasadda idin la tagin ilma meesha yaalla carruur yar ha ku diganina maanta kala digisho ma mudna maanta kala garab istaagay mudan tahay saaxiibayaal waa sida saxda ee gobonnimada leeyahay wallahi ana idinka aqaano jarmal carruur u qaatay dheel ugma soo celiyo hadda idin sheegaa tawriya maxaa gabadheena adeertaay ku daba dhigay irsaaqada aad u cunaysamay ka cunaysaa maxaa ina adeerta ku daba dhigay maxaa uga hadlee ayadaa maanta teeda haysataa haddaadan u hiilinin afkaaga ka xiro dadku way istagaalaan 200 oo qof baad hameenaya maalin caydaaye 24 hours dad baad caydaaye waraa kuwii la caawiyay oo carruurtooda lacag lagu bixiyay inay carruurtooda u dacwoodaan artuna raaxaysanayeen oo ilmahooda dayacan we don't need no fuust ilma dambe anaga jeexjeexina kaarkasna ka jeexjeexinayna igu sheekada hay runta rabbiyaan ugu jecel shaqayso wacagta tabasna joogta sharci وعيني رنت وحبينا والله أنا كوب عينين والله وبالله وطلع أنا وحبينا كوب عينين رب باكو عينيا جبرو تلعسن باتهاي أي دلاي باتهاي أرم باتهاي خليس باتهاي بدحلاتهاي وحاس أدواتها هدارتي هذا حبت أسجنا عيننا يلا عيننا dad wax isku wada ahaatiin idinkoo dhan familiatiin oo iswada leedihiin
waxna jabraha caynina jabrana isagana inuu baasha sii kulleeya ma aha waxaa idinkoo dhan ka wada fikirtiin ilmaha meesha yaallo iyo dalkan Germany oo ah dalalka ugu mayalka adag markay noqoto in ilmo la qaato anigu runta idin sheegaya baasha isku riixriixa iyo inaa xarash isku wada heeseen iyo dad ilmaadeeraa wada tihiin dhammaantiinba inaad maaragtay waa iseena iyo biyaha hoostiisa iska arkeyna iyo waa isa sugeyna iyo tan ma gasho u kaadiya ilmaha fiiriya ilmaha hala fiir war hooy ilmaha fiiriya waraa kuwii la caawiyey oo caruurtooda lacag lagu bixiyay inay caruurtooda u dacwoodaan abtuna raaxaysanayeenoo oo ilmahooda dayacan we don't need no fuusta ilmo dambe anaga jeexjeexina kaarkasna ka jeexjeexinayno runta rabbi aan ugu jecel shaqayso wacagta tamasna joogta sharci qaado hudooy oo mataqaana ilmaha ka taxadar waxbarasho geyso we don't need drama in TikTok carro laga qaatay ibno laga qaatay haddaan jeexjeexina waxaas wax soconaya bulshada laga iibinayna ma jirto sharmaaka waa in adeerka adaasha la dooratay anaga kuma doorin ma fahmaysaa idinka ilma adeer isfahma warayarka ekiskeeda iyo jabra iyo hudda iyo dhammaan dad ilma adeer waay laakiin ilaa hadda waxa garan lahay idinkoo dhan waxa u fiir laadiin ilmaha maxaa u arki laadiin yani arintan ilmaha markii la qaato inay fududahay u maleysina dadkiin Afrika joogay iyo war haddii ilmo Jarmal ka qaataan ama Norway waa labada wadan ee ugu mayalka adag ilmaha waxa laga yaabaa in lagu soo celiyo 18 asoo gaaray oo tattoo marsan istaagana qamriga kacbaayo ku dhaaya taadi diin iyo dhaqan warkeeda dhig asoo ku dhaaya tahay marka carar meesha in lagu soo celiya laga yaabaa jabrahooda amuun sida ugu jeesteesay nabsiga uu ka galay wax wada qaadan karayo wax laga aamusi karayo wax la fiirsan karayo midna ma aha iga foge nabsiga noocaasa saad wada socotaan bahooda amuun ayaa waqti xaadirkan xaaladeedu ay gidhiish tahay waxa la sheegay sida la sheegayo wada amuun inuu soo dacweeyay ninkii lagu magacaabi jiray Shamak Sharmaarke ee ay wada joogi jireen ilmahana ay u dhashay isaga oo ku ducanaya sheegayana inay ilmaheeda u fasix weeday inuu arko rabana inuu ilmaha kala soo wareego wuxuu u sheegay baa la sheegayaa dawladda Jarmalku inay ilmaha la wareegaan si uu isagu u arko waqti xaadirkan waxa la sheegayaa wada amuun dalka Talyaaniga inay aaday macquul inay dalka aaday oo arintaas laakiin sida la sheegayo waxay aaday baa la leeyahay dalka Talyaanigu hadda waa nooce dalka Talyaanigu waa Nigeria oo lagu yiri aad dalka Talyaaniga nolol ma taalo dalka Talyaaniga naxariis ma taalo dalka Talyaaniga cayd ma taalo dalka Talyaaniga gabadh ma fiicna dalka Talyaaniga hooyo ma fiicna dalka Talyaaniga single mother laba ilmood haysata oo ma fiicno gabadh aan iska badaa oo meel walba lagu diganayo Soomaalidu markay arkaan lagu qoslayo war waa maxay gunnimada war qalam runtu idin sheegaya yarkan qalam waa nin qurbaha in badan joogay marka yarkan u fiirsado wax badan uu fahamsan yahay runtu idin sheegaya war gabadha ka dhaca war gabadha ka qaleeya war si kale gabadha caadi in maaragta dilisaayo maaragta fuustal isku reexay la xifaaltamay war ilmaha fiiriya ilmaha hala fiiriyay wallahi xilligan reaction leegama baran mid kale balama iyo waxbaan leeyahay hadda u socday waa la soo socdaaba marka arkay videoyada iga hor imaanaya yani damiirka ay siin waayay meesha iyada markay marayso gobonimada waxay ku jirtaa in gabadha la wada garab istaago Sharma Boy ogeedeen in ilkaas ka raacday uu soo garab istaagay عنا موديل كذلك سميحة وحلو ليه إسجف جرين يعني ما لو كهر لما جوجو عرور مرة باش ودي المجارتو أجنبي خاضنا يان قبل اللي قرب استاجوا إذا كنتوا حافيرسين المها وده أمون إكس كيو إذا كحرش كشكوى وحصل إلوه المها بس فيريا ما شنو جرماني وعلى سلامة يا